السلام عليكم أنا waxaan xisbanahay anigu magaalada Puntland joogaa hadaan joogana gabadhaydii jima ahayd jima Cabdulqaadir Xasan oo loogu geystay magaalada Puntland kufsi waxaan ka codsanayaa oo ay haatan u dhimatay magaalada Puntland kufsiga loo geystay Garowe ay ugu dhimatay waxaan ka codsanayaa xaqqa ay duudsiinayaan leeyihiin baabsiir bay qabtaa cusbay qabtaa inaysan waxaas gabadhayda hameen iyo maalin midna aysan ku u dhimanin baan kitaab jaamaca ku maraya ay qabsadeen saddexda nin 4 saac ay intay qabsadeen oo kufsiga u geysteen waxaan ku kitaab jaamaca ku maraya inay 4 saac intay qabsadeen kufsigaas ay ku qabsadeen gurigooda dhexdiisii waxaan kitaab jaamaca ku maraya inay saddexda ilmood qabsadeen waxaan magaalada Garowe ka codsanayaa Puntland waxaan dawladda Puntland ka codsanayaa xaqqa ay duudsiinayaan in Ilaahay u jeedo baan Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay ka soo ifbixiyo xaqqa Jimaac Cabdulqaadir Xasan ay duudsiinayaan wax marna ma u tagtay dawladda Puntland maxaa ka codsanaysaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo maxkamadaha waxaan ka codsanayaa magaalada dawladda Puntland inay ilmahaas agoonta waxaan ka codsanayaa xaqeeda ay duudsiinayaan inay soo saaraan xaqqa ay duudsiinayaan cagta saareen maxkamadaha wixii ilmaha dhalay cagta ay saarayaan in wax la iga qabto maan u istaaganahay ka codsanayaa guriga wiilasha qaabkee u imaan jireen maadaama hooyadii aad tahay dhashay gabadha daaqad iyo waxaa ay sheegteen waxay u imaan jireen casarkii waxay u imaan jireen fiidkii kheyradis bay ila ahaayeen waxa weeye anigu balaayana markii hadday ii imaanayaan weligoodba wiiday taagnaayeen markay ii imaanayaan casarka markay ii imaanayaan fiidkii wiido ay rabeen inay gabadha qabsadaan oo chance ay ku helaan bay raadinayeen jaaniskiina way heleen waana ku qabsadeen waayo casarkiiba imaanayaan anoo fadhiya imaanayaan anoo jooga imaanayaan casarkiiba imaanayaan fiidkiiba imaanayaan dariiqyada marayaan maxay raadinayeen siday gabadha yartaa u helaan bay jaaniska raadinayeen waana heleen waana ku qabsadeen guriga maana imaan jirin guriga maana arag guriga meel ay magaalada ka yahay mana qabo ayaga ku hadlayeen casarkiiba imaanayaan fiidkiiba imaanayaan waxay raadinayaan kaliya say gabadha u helaan waana u heleen waana ku qabsadeen xilligaas gabadha dhibaatadaas ay u geysanayeen nimankan adigu xagee ku sugnayd anigu waxaan ku sugnaa iskoolka bilaal baan ka soo adeeganaya agtiisa 4 saac bay ahayd markaan hawsha u dhameeyay waxaan ku yiri hooyo sii jooga guriga saa markaan uga baxay bay tiri hooyo bay ii soo galeen ina bixiba toorayda igu qabtay maya dhabicu yiri bay tiri saddexda kalena labada kalena way ag taagnaayeen bay tiri midna iridku taagnaa midna way ii soo galay bay tiri saddexdii say u kala horreeyeen bay ii sheegtay ina bixiba iigu horreeyay ina giir baa iigu xigay ina maartaa ninka kale magaciisa ma aqaaniin raage baa u dambeeyay bay tiri saddexdaa nin siday u qabsadeen bay ii sheegtay markaan u imid waxba iima ii sheegin hadday ii sheegtana boosaasiyo Garowe midna lama geeyeen kiiska markaasaan qabsan lahaa 3 beri markay xanuunsaneed aan ku yiri gabadha 3 beri bay xanuunsan tahay dhakhtar ha la geeyo waan walaalaheed baa qaatay Garowe ay booyasoo wayada la geeyay ma garan waxa weeye markiiba dhakhtarka saa loo geeyay baa la sheegay haddii la ii sheegayna haddii hawshaan baaba dhacday aniga liga qariye rag markii la xirxiray baan anigu ogaaday waa gartay markii gabadha hawsha laga helayna la iima sheegin waxaana la iigu sheegin haddee anaaba ordi lahaa haddii la sheegi lahaa sidaa ii sheegtay daaqad baa tiri waxaa weeye guriga ka mid ah bay nimankaa daaqadan waxaa jabiyey ilmo biixin labada wiil baa daaqadan jabiyey
hameen bay guriga usoo dhiceen anagoo hurudna daaqadii bay jabiyeen hameenkii hameenkii ba seexdeen waagu markuu baryay albaabkii saa oo furan oo aysa hoosta ka xiran baa gabar waxay tirinaayaan niman baa guriga hurda gurigii baan saa ugala umul baan ahay niman baa hurda labadii wiil markaan gartay inay is actiifaan baan guriga saa ugu soo qotaa hooyadood baan waxaan kasoo qaaday quful halkaana iigu jiraana waxaan iri kee quful xoogaa baan ku canaadayaaye qufulkii baan ku dheji daaqadda bay ka daateen inay daaqadda hameeni bay jabiyeen ugu dambeyntii ilmaha adigu hooyo ahaan ma ku dhaaranaysaa ilaahay hortiis miyaa ugu dhaaranaysaa kufsiga nimankaas inay u geysteen najmo cabdiqaadir najmo cabdulqaadir xasan oo ay kufsiga 3 ilmood u geysteen waan ku dhaaranayaa gabadhaa inay 3daas nin intay kufsadeen guriga dhexdiisa ay ku qabsadeen baan ku dhaaranaya maxaa ugu baaqaysaa baahda cadaaladda iyo madaxda puntland ugu sareyso kufsigii loo geystay najmo cabdiqaadir si ay cadaalad ku hesho maxaa ka codsanaysaa waxaan ugu ka codsanayaa inay xaqoodaas gabadha agoonta ah oo miskiinta ah oo gurigooda dhexdiisa loogu yimid in wax looga qabto waan ka codsanayaa magaalada dowladda Puntland